السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. walaalyaal waa salaamantihiin meel kasta aad joogtaan. waa walaashiina mari muridiin mar kale oo idin leh jimco mubaaraka. jimcada khayrkeeda allaha na soo aadiyo sidaad iiga barateen. maanta jimco mubaarak waay, jimco waay, maanta ilaahay khayrkiisa na soo aadiyo. aan isku wada duceyno, suuratul kaaf aan akhrisano, guryaha aan ku shidano, guryahana aan iska carifino. waqti kasta guryaha waa la carfinaa, laakiin maalinta jimcada waa maalin kheyr qabto. maalmaha ilaahay kama kala duwano, laakiin maalin jimco waa maalin kheyreysan maasha allah. marka kusoo dhawaada walaaleyga khaaliga ah, janaalkiina waay, qalbi furan, niyad saafi ah, gacmo furan. marka khadayar oo macaan ayaa maanta kasoo tuuroyaa. khudaartan bis ayaan rabaa inaan ila sheer gareeyo, bariis cad ayaan ku cunoonaa. marka waqtigeena oo igu dheeraada ayaan diiday. inta waxaan ku haysanaa karoot, intan waxaan ku haysanaa oo sidaan usoo jarjarnay oo frozer ah, soo diyaara lii keenay, waa dhaqay, talaajadan gashtay. baradhadana waa tana, idana sidan ayaan usoo jarjaray. digirtina waa tana, waad ujeedaan idan frozer waaye, waa lii keenay, waa dhaqay, talaajada ayaan gashtay. basalo islees aan usoo jarjaray. kanaa marka soo haray inaan idin sheego, bagdoonis aan lahaa. laba nooca soo waay, noocaana hadda ani soo helay. nooca kale sida kabsar caleynta ayuu u eg yahay, noocaana sidaan, subxaan allah, ilaahay untiisa waad ujeediin maasha allah. marka hadhow bagdooniskan hadhow kor ayaan rabaa khudaarta markaan dhameeyay inaan ugu quruxsado. iyo inta toono ayaan ku daraa asina, noocan ayaan isticmaaloyaa, iyo hal xaba maraq dijaaj ah, iyo inta mix spices oo xawaaji ah, iyo xawaaji kaari bes ayaan u baahanahay, iyo barbarooni, iyo tuun islees aan soo jaro hadda ku shiilaayo, iyo tuun iyo kabsar caleen aan ultimo u baahanahay. maanta maasha allah khudaartan aad ayay fitamiin u leedahay. khudaarna waa ogtihiin fitamiinka ay leedahay. marka hadda sidaan ayaan jecleystay inaan ila sheer gareeyo walaalahayga khaaliga ah. marka hadda waa kanaa. hadda marka waxaan gelaynaa dalaci ayaan bilaabeynaa. waxyar subagaan yar ayaan rabaa inaan ku shiilo. laba qaanda ayaan ka qaadanaa. marka alaabtan dhan waa laisku shiilaa, wax kale ay u baahan tahay ma laha. hadaa rabti sida salad camal aa u cunaysaa, hadaa rabti cashaa ka dhigan kartaa, rooti aa ku cuni kartaa. laakiin ani maasha allah maanta khadayar aan familka jimcada ugu talagalay waaye. marka bariis cad ayaan ku cuneynaa. marka hadda dalaci ayaan diyaarinaa, waa isku soo naqaneynaa. walaaleyga khaaliga ah, waa kanaa digsiga ayaan soo saartay, waa kanaa subaga ayaan ku darsanaa. malahan laba qaanda bis ayaan isticmaalaa. hanoo soo dhalaalo, ha kululaado, waa isku soo naqaneynaa. walaaleyga khaaliga ah, hadda waxaan ku darsanaynaa bes. maanta basal ma ku dalceynay, runtaan isleeska bis ayaan ku dalcaneynaa. maanta maasha allah khudaar yar oo fitamiin leh oo isku karis ah waayo. khudaartan aad ayay maasha allah ugu fiican tahay ilmaha, dadka waaweyn maasha allah dhadhan fiican ayay ku siineen maasha allah. tuunta ma malaysan kartid carafteeda iyo subaga. waxaan ku darsanaynaa kaarotka ayaan tuugka hormarinaynaa. waa ogtihiin kaarotka xoogaa wuxuu rabiyaa inuu si fiican u bislaado. iyo digirta ayaan isku daraynaa. kuwalahan ayaan soo shiilaa, wixii kala gadaal ugu baahnaado waa isku soo naqaneynaa. waa kana baradhada way u dambeynaysaa. waxaan jecelnahay inay naga burburaan ama naga turturaan marabni, sidiisa ayuu soo ayaan rabnaa inaan maasha allah ka dhigano. marka alahan ayaan isku soo shiilaa, waa isku soo naqaneynaa. walaaleyga khaaliga ah, waa kanaa sidaan ayuu ku shiilmay. huuritaankii aan huuriyey waa kaas oo waxyar biyo dhalay. marka waxaan rabnaa digirtan iyo kaaroodka markay soo bislaadaan oo xoogaa yar u dhiman yihiin ayaan waxa kale ku darsanaynaa. baradhada ilan waxyarna u baahan tahay karis, laakiin digirtan iyo kaaroodka xoogaa karis fiican ayay rabaa. marka hadda biyihiisa ase dhalile, waa biyo dhan ma ku taabani iyo subagii aan ku karin aan ku shugaayey. marka sidaan ayaan weli rabnaa inuu noogu soo huuro oo noogu bislaado, kadib waa isku soo naqaneynaa. walaaleyga khaaliga ah, waa kanaa hadda. sidaan ayuu noogu bislaaday, waad ujeedaan maasha allah.
hadda marka waxaan ku darsanaynaa baradhadii waa kana waad isku dejinaysaa marka hadda maxaa noo dhiman inaan dhadhankiisa wixiisa dhan aan siino hal xab maraq digaag aan soo jijibiyey waxaa ku daray spices mixigi waajikaarigii waa ku daray kasir way ku jiray cusbo yar oo dhadhan fiican inuu khudaarta noo siiyo rabno waa kana filfil madow oo wax yar ah asigana biyo dhan wax la dhahayo kuma taabanaysid walaalay qaaliga ah oo laga lahayaa marka waana buubsiinayaa dadbadii laga soo noqdo qarwaalina diyaar ahaata ayaa laga rabaa marka waa kana waxa kale usii dhiman gadaal ayaa ugu soo noqonaynaa marka hadda insha allah ha isku bislaado baradhadeena noo bislaato kadib isku soo noqonaynaa walaalay qaaliga ah waa kana maasha allah dab haadi ah oo yar ayaad ku karinaysaa maasha allah sidoo isku dhaxgal mu jeedin khudaar maasha allah ilmaha ka heli doonaan waaye marka hadda waxaan ku soo darsanaynaa toonadeeni ayaan ku soo dareynaa waxaan ku soo dareynaa kabsar caleen iyo toon wax kale u dhiman ma laha aan barbaroonigii basasha ka ahayn marka hadda waa isdhexgelinay 5 daqiiqo ayaan u dhaafaa kadib waa isku soo noqonaynaa walaalay qaaliga ah waa kana maasha allah khudaartan shalay kama khabaysiin barbarooniga ayaan ku darsanay basashi ayaan ku darnay wallahi thumma wallahi inaadan shalay ka khabaynin hadaa suubisiin waa tujeediin kastir suugalay aan ku kariyay waa tujeediin wax oo jajabay ma laha maasha allah khudaar aad fresh u ah waaye haddana maasha allah khudaarta ilmaha aad ayay ugu fiican tahay haddana kistaan ayaan ku huurinaa oo isku dhamaatay waa soo diyaarinaa miiska ayaan kusoo diyaarinaa waa isku soo naqanaynaa walaalahayga khaaliga ah sidaad iiga barateen maasha allah unsigeena kama maqno waa kaas maasha allah intan waxaan ku haysanaa cuud maca catar ujeediin maasha allah waaye haddaad ujeediin waa kaas maasha allah jimco mubaaraka inaa isaa carafina ayaan jecelnahay raali ahaada jimco waaye ilmaha buuqooda haddaad makhluusiin waa kaas unsigeena cuudka ah maasha allah caraftiisa ma maleysan kartid waa kana maasha allah jimco mubaaraka museyga waa in loo carfiyaa maasha allah guriga la carfiyaa unsigan aad ayuu u carfaa cuud waaye cuud maca catar maasha allah waaye caraftiisa waad ujeediin maasha allah guriga dhan ayuu saa noogu carfooyaa waad ujeediin waad ogtihiin guriga waa kana fadhigeena daahyaalkeena wax kama maqna ma laha maasha allah waa kana miiskeena kama maqno maasha allah sidaan ayaan u duubanay hadda qadadii ayaan soo diyaarinaa oo isku soo noqonaynaa walaalahayga qaaliga ah kusoo dhawaada qalbi furan niyad saafi ah gacmo furan qadada ayaan soo diyaarinaa oo isku soo noqonaynaa walaalahayga qaaliga ah waa kana qadadeena basiidka ah sidaan ayaan ku diyaarsanay waad ujeedaan maasha allah bariiska cad beejkeyga wuu ku jiraa kana waxa waaye bagdooniskii ayaan kor ka soo saaray khudaartiina waa kana maasha allah siday u qurux badan tahay asina bagdooniskii ayaan kusoo jarjaray iyo liintiisa kusoo ziineeyay casiirkeenana waa ka casiir rakhay insha allah mar kale ayaan ila sheer gareynaa casiir rakhay ayay maanta naga haysaa islees ninkii rabana islees ayuu ku cunaa khudaarta wax alla waxaad rabtid ayaa ku cuni kartaa walaalahey bilcaafiya caleena casiirka ayaan kusoo shubaa waa kana ujeedii rakhay waa casiir rakhay waa kusoo shubaa isku soo naqaneena walaalaheyga qaaliga ah waa kana casiirkeena waan kusoo shubanay waad ujeediin maasha allah
familiar oo macaan badan ayaan iska nahay maasha allah. allahna xafido idinkana sidoo kale. bilcaafiya caleena wacalaykum. qadadeena jimco mubaaraka. maanta sidaan ayay diyaar noogu tahay. khudaartaana lagama sheekee kara faarahan maasha allah waaye. barowe jaribo walaalaheyga qaaliga ah. subscribe, like, share, commenti ducada dhiirigelinta agtiina ayay jirta. sharaftale waa kana qadadeena sidaan sharaftale ayaan ku diyaarsanay. markaada waa kana gurigeenana wax ka maqan ma laha maasha allah. sidaan ayuu diyaar noogu yahay. unsigeenana waa kaas. marka insha allah kusoo dhawaada janaalkiina waa qalbi furan, niyad saafi ah, gacmo furan. sidaas ayaa idinkaga baxayaa. fi amaan allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.